Afar qodob oo qofka ka caawinaya inuu yeesho dhaqan akhris. Xikmaddu maaha tirada buugta uu qofku akhriyo, balse waa tayada buugtaas iyo miisaanka xogta iyo aqoonta ay xambaarsan yihiin. Sidaas awgeed, xoogga ha saarin in aad badiso tirada buugta ee waxa aad dadaalka gelisaa doorashada buugga aad akhriyeyso iyo ka faa'iidaysigiisa. Dhinaca kalena ha rumaysan in buug akhrisku ay kaaga baahan tahay firaaqo fiican iyo wakhti u go'an. Haddii aad sidaas isu tusto, waxaa hubaal ah in ay kugu adkaan doonto caadada wax akhrisku. Marka hore, haddii aad u baahan tahay buugaag bilaash ah, waxaad ka helaysaa Telegramka Somali Box. Halkan waxa aan kugula wadaagayaa dhowr talo oo ku dhaqankoodu ka caawinaya wax akhriska. 1. Yeelo halbeeg akhris. Nafta bani'aadamku waa ay ku dhiirataa qabashada howlaha ay og tahay in ay ku gaadhayso yool ay leedahay. Samayso qondo buugaag ah oo aad muddo go'an ku akhrido 7 bil, 6 bilood ama sannad. Dooro buugaagta aad akhriyeyso, inta badan doorashadooda waxbay ka caawin karaan. Yeelo mowduuc gaar aad ugu takhasusayso oo aad akhriskiisa xoogga saarayso, adiga oo aan ka tegayn akhriska buugaagta kale ee ku soo jiidata. Dooro qoraayo aad buugtooda si gaar ah u ugaadhsato. Akhri faallooyinka akhrisyada iyo qiimaynta lagu sameeyo buugta si aad uga dhex aragto kuwa lagu talinayo akhriskooda. Tag rugaha iibka kutubta oo isha mari hadba buugta cusub ee soo korodha si aad uga doorato kuwa ku soo jiida. Buug tiro badan mar keliya ha wada iibsan. Weligaa ha dhammaysan buug aanad ku qancin ama xiisayn qaybihiisa hore markaad akhrido. Diyaarso liiska buugaagta aad xiisaynayso akhriskooda ee ay tahay in aad muddadaas ku akhrido. 2. Dooro wakhti ku fiican akhriska, laakiin ha isku waajibin. Waa ay fiican tahay in aad jadwal go'an u samaysato akhriska, laakiin naftaada ha barin in wakhtigaas iyo akhriska ay isku xidho. Tusaale ahaan, haddii wakhtigaasi si uun ku dhaafo, in ay u qaadato in akhriskii maalintaasi baaqday. Wakhtiga aad akhriska u goynaysaa ha noqdo mid kala duwan. Tusaale ahaan, maalintii dhowr jeer oo mid kastaa daqiiqado go'an yahay. Waxa aynu odhan karnaa qadada kadib 20 daqiiqo, hurdada ka hor 30 daqiiqo, subaxda hore 40 daqiiqo, iyo wixii la mid ah. Waxaa iyaduna xal fiican ah in aad mar kasta gacanta ku sidato buugga akhriskiisu kuu socdo, si firaaqo kasta oo aad hesho aad uga faa'iidayso. Baska, maqaaxida inta aad shaaha ama ballanta sugayso, xiisadaha waxbarashada dhexdooda, iyo wixii la mid ah. 3. Ha ilaawin sababta aad wax u akhriyeyso. In badan waxaa dhacda in qofka ay ka khaldanto ama uu si uun u baalmaro ujeeddada runta ee wax akhriska. Xasuusnow in sababta wax akhrisku ay tahay in aqoon iyo xog la helo ama maararow iyo ku nafisid ay tahay. Sidaas awgeed, wax akhrisku yaanu kaa noqon sida waajib ku saaran oo aad gudanayso, ama shaqo maalinle ah oo gudashadeeda lagugula xisaabtamayo. Nafta bani'aadamku wixii waajibaad ah waa ay necab tahay, culays saaran iyo dhib sugaysa ayaa ay u qaadataa. Sidaas awgeed, marka ay xaaladdu heerkan gaadho, waxaa dhacda in qofka uu ku yaraado fahamka waxa uu akhrinayo, xusuustana aanay u dhaadhicin. Waxaaba dhacda in mararka qaarkood uu isweydiiyo sida uu ku gaadhay bogga ama sadarka uu akhriskiisu marayo, kadib marka uu xasuusan waayo intii ka horraysay. Marka ay xaaladdu heerkaas gaadho, jooji wax akhriska oo muddo ka maqnow. 4. Ha rumaysan wax kasta oo aad akhrido. Qoraalka ama buuggu waa aragti iyo faham qofeed. Si kasta oo uu doodiisa xujooyin iyo caddaymo ugu daliiliyo, haddana weli kitaab qur'aan ah iyo qowl nebi ma noqon karo. Waa uun dood ku timid cilmi baadhis iyo faham. Maantagna waa muduciyo afkood oo laga yaabaa in uu jiro aqoon-yahan iyo caalim kale oo isaguna intaas in ka duwan soo helay. Malaha waaba sababta uu ku baxay halkudhega ah: marka aad aragto in aad rumaysanayso wax kasta oo aad dakhrido, iska jooji akhriska. Wax akhri, laakiin xogtaas ha ku kaaftoomin, hana ku go'aan qaadan ee ka dhigo barbilow aad ka dusho oo raadi aqoonta iyo xogaha ay xeeldheerayaasha kalena ka qabaan qodobkaas.